waxaa maanta sharaf ii ah in aan ku caawinayno in aan intaan ka weynino sababta noo suurtagelin weydo waxay tahay oo naxadiday oo runtii naxanibtay oo noo diiday in aan bulshada la wadaagno dad badan aan u yeerno si aan ugu macnayno barnaamijkan iyo marxaladii uu soo maray waxaa noo diiday isu dhawaanshaha keeni karto in la kala qaado cudurkan oo waxa kaliya looga hortagi karo inay tahay in la kala fogaado ama social distance waxa luqadda ajnabiga ama shay lagu yiraahdo in aan yareyno isu imaanshaha in la kala fogaado dadku inaysan istaaban maxaa yeelay saan hore u sheegnayba cudurkan wuxuu leeyahay ka hortag ka dabtagiisu waa dhib badan yahay waa runtii bilaaw wanaagsan wax walbana dee meel bay ka bilowdaan inaan nasiib u wada yeelanay idinkuna aad runtii ka shaqayseen inay hirgasho markii ugu horeysay ay dowladdu haba yaraataba ay gaarsiiso shacabkeeda dadkeeda saboolka waxay awoodo inay gaarsiiso bil ramadaan ay hadda ay bilaabanayso mar dhow iyo xaaladan covid-19 ay keentay oo dad badan laga yaabo qootulyoonkoodii iyo noloshoodii inay dhintay in dowladdu ay u gargaarto ay kaalmo gaarsiiso runtii waxaan oran karaa waa horumar aan gaarnay waxaan aaminsanahay marka haddii intaas aan ku sii darno waxaa laga yaabaa ama intaas aan ugu sii dhawaano waxaa laga yaabaa intaas iyo in ka badan awoodeen inay tahay aan gaari karno waa mar kale waa idin mahad celinayaa shaqada wanaagsan aad qabateen ummadda aad u qabateen oo in aan daryeelno dadkeena inaan shacabkeena daryeelno mar walbana in madaxa nooga jirto ama maskaxda in nooga jirto mar walbaba waxaan u maqannahay oo aan u shaqeynayna inay yihiin dadka aan mas'uulka ka nahay ama dadka mas'uuliyadda noo dhiibtay marka hawsha aan laba jibaarno aan shaqeyno insha Allah